waxaa la wariyaa in nin uu u yimid gabar meel ceel ah joogto. markaasuu gabadhii wuxuu ku yiri, gabaray waxaad wax iiga sheegtaa dumarka dhagartooda. way qaylisay. dadkii magaalada ayayna caawin ka dalbatay. markaasuu ninkii wuxuu yiri, maxaad la qaylisay buu yiri oo sidaa u samaysay. markaasay waxay tiri, waxaa rabtaa bay tiri inay dhibaataysid. suu yiri, aniga su-aashan kuma weydiinin buu yiri li'anno inaad tahay gabar qurux badan darteed inaan ku faduuliyo, ee waxaan ku weydiiyey buu yiri inaan wax kororsado oo cilmi ii faa'iidaysid. markaasay waxay tiri, masaas baa biyihii ay ceelka ka dhaansanaysay bay marka isku shubtay. dadkii magaalada markay yimaadeen oo qeyladeeda ku soo baxeen waxaa la yiri, maxaa dhacay? markaasay waxay tiri, ninkan ceelkan baan ku dhacayo isaga isoo badbaadiyay. markaasay dadkii magaalada ninkii u mahad celiyeen, ay ammaaneen, ay abaalgudna siiyeen. markaasaa gabadhi marka wuxuu ku yiri, oo hadda sidan aad samaysana maxay ahayd buu yiri, yacni maxay ka dhigan tahay? markaas ilaani kumana badbaadinin waxban ceelna kuma aadan dhicin. markaasay gabadhi waxay tiri, waa sidaas bay tiri haweenku, ama waa sidaas bay tiri dumarku, haddii aad wanaajisidne waxay tiri way ku caawinayaan, way ku maamuusayaan, oo ay sidii boqorkii oo kaleentood ku boqorayaan. haddii aad dhibaato la damacdidne sidii horoo kale ay kuula dhaqmayaan, waxay tiri way ku dili karaan, oo inaad maaragtaa dhimatid ayayba sabab u noqon karaan. waana sida ay tahay. waayo gabadhu haddii aad wanaajisidne way ku wanaajinaysaa. keliya gabadhana ma ahane, qof walba bani aadam ahba haddii aad wanaag kula dhaqantid, wanaagunbuu dhalaa. hal jazaa'u lixsaanu ila lixsaan. haddii aad xumaysidne dee qofaad xumaysa wax walbaba ka filo. sheekada sirta waa rajaynayaa fariinta ku jirto inaan fahanay, macnaha ay xambaarsan tahayne inuu yahay maasha Allah tabaaraka raxmaan, macno mug weyn.